Jordan Klopp oo marmarsiyo ugu weyn ku sababay barbarihii ay Fulham la galeen. Madrid oo ku dhigtay laba xidig oo doonaysa inay isaga tagaan garoonka Santiago Bernabeu. fadlan halkaad kala socotaan waa YouTube channelka ogaalka ciyaaraha. fadlan markii kugu horeysa hadee tahay asoo booqatay fadlan subscribe, like, share, gambalka furo. waa ku mahadsantahay hadna barnaamijkeena sii galeyna. kooxda Liverpool ee Jordan Klopp oo sanadaha uu Premier League joogay ku soo caan baxay inuu marmarsiyo kala duwan oo la yaab leh u sababay natiijooyinka xun ee kooxdiisa ayaa shalay heer kale u qaaday sababahaas kulankii ay barbardhac ka soo gaartay ama la galeen kooxda kubadda cagta Fulham oo ay 2-2 la galeen. ciyaar xiiso badan oo ka dhacday gegida Kotan ayuu Alexander Mitrovic laba jeer tabtay shabakh Redis, halka Darwin Núñez oo bedel ku soo galay iyo Mohamed Salah ay badbaadiyeen kooxda martida ahayd ee Liverpool. Klopp ayaa kulanka kadib sheegay dhowr dhibaato oo ay kooxdiisa wajahday ciyaartaas, balse midda ay ugu yaabka badan ayaa ahayd inuu ku andacooday inuu garoonku qalalnay ama engegnay. Jordan Klopp oo kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa yiri waxa ugu wanaagsan ee maanta waxay ahayd natiijada xaqiiqada ah inaan dhibic helnay kadib dhab ahaan kulan xun aniga dhinacayga. haddana su'aasha waxa weeye sidaan ku dhacday, macnaha su'aasha waxa weeye sidee ayay sidaan ku dhac kartaa. hab fikirka ciyaartu sax ma ahayn. bilowgii kadib waxay doonayeen inay dib u dagaalamaan, balse may sahlaneen. garoonku wuxuu ahaa mid qalalan ama mid engegan, siday doonayeen baa nagu dhacday. natiijadu waa caadi, uma malaynayo inaan u qalanay intaas wax ka badan. Liverpool ayaa ku dhibtoonaysa inay wax fursad ah abuurto qaybtii hore. nasiibkooda ayaa isbedelay markii ay 3 bedel sameeyeen qaybtii dambe ee horeynta. Liverpool sanadkan horyaalku waa bilow wax niyad ahna ma muujinayso. marka midaas waxaan ku sheegayaa Liverpool ciyaarta shalay way ku dhibtootay kadib markii kaambida koow isku day waysay wax fursad ah, balse kaambida dambe markay bedelada 3 bedel ee bedelku keenay sida waryaanka cusub ee Darwin Núñez oo kale oo badbaadiyay Mohamed Salah bandhigiisa dib u helay. marka Liverpool way isla jaan qaadi kartaa, horyaalkana wali waa bilow. intaas ayaan dheelaa Liverpool. okay, warkeena xiga waxa waaye kooxda Real Madrid. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa diiday inay iibiso ama iska kala ku dirto sida amaahdo kale ciyaartooyda labada ciyaartooy ee kala ah Dani Ceballos iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Marco Asensio. horyaalka wadanka Spain La Liga oo bilaabay bartamaha bisha oo bilaabmanaya ama horyaalka ayaa bilaabmay bartamaha bishan Los Blancos Real Madrid ama Los Blancos ayaa doonaysa inay luminin ciyaartooy kale maadaama hore uga tageen ciyaartooy waaweyn sida Isco, Garzbel, Asensio, Marcelo, Borja Mayoral, Jovic, balse haddii ay laga maarmaan noqoto in ciyaartooy iibiso, Real waxay danaynaysaa inay iibiso labada ciyaaryahan ee lagu magacaabo Diaz iyo Alvaro Odriozola, macnaha Mariano Diaz. Ancelotti oo ogsoon in xil ciyaareedka oo dhabaq ama dhib ku dhici karo ciyaartooydiisa maadaama la aadi doono koob adduunka ee dhici doona in ciyaartooyda Real Madrid daalaan ama ciyaartooydiisa daalaan ama dhaawacyo soo wajaho. marka asaga ayaa doonayeen inuu iska iibiyo ciyaartooyda ama heshiis ku diro. sidoo kale heshiiska Marco Asensio oo sanad kaliya ka harsan yahay isla markaana hore u diiday inuu qandaraas cusub saxiixo ay Real Madrid ku qamaaraysa, waxayna doonaysaa in uu sii joogo xil ciyaareedkan iyadoo sidoo kale rajo ka qabto in ka hor inta aan la gaarin bisha June ogolaan doono inuu saxiixo qandaraas cusub. Real Madrid ayaan intaas rajeynayso. Ceballos xilaareedkii hore intaba ogaay inuu Real Madrid boos ka helin ayaa xilaareedkan wuxuu aad u dhaleelay Real Madrid ee ciyaartooy la soo saxiixatay ee isku boosiin ay qadax ka dheelaan, wuxuuna darbiday inuu isaga tago Real Madrid. marka wuxuu dhahay maadaama booskaada la keenay ciyaartooy far badan ay hor u joogeen Modric, Kroos, Casemiro ay hor u joogeen, haddana lagu soo kordhiyay ciyaaryahanka Tchouaméni, Valverde, Camavinga waxaas oo dhan hadda sii joogaan. way adagtoo dhaa inuu boos ka helo. ciyaaryahanka ayaa inta badan ku qaatay Real Madrid dhaawacyo, inta kalena xilaareed ku qaatay amaahyo banaanka ku ciyaara isagoo u dhiilay kooxda kubadda cagta Arsenal. marka Ceballos ayaa loo badanayaa inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Real Betis hadaa oo asaga ay dalab inuu ka helo laga yaabo.
marka intaasna Ancelotti wuu diidan yahay inuu fasaxo ciyaartooydiisa maadaama la aadayo koob adduunka oo dhici doona dhaawacyo iyo waxaas intaas ayaan soo gabeynayna barnaamijka fadlan subscribe like saar gambaleel ku furo website-keena ciyaaraha soo booqo aad mad celinaya inta aad nala socotaan waa ku mahadsantihiin dhageysigeena